ciwaanada ugu waaweyn baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay waa fanaaniin fanka isaga baxay iyo fanaaniin kale oo iyagu ka aragti dhiibanaya iyadoo dunida sii xumaanaysa ee marba midabka ah ay ka soo dhex baxaan shakhsiyaad ku suntan calaamad gaara kuwaasi oo hadalla saameyn leh ku qabsada baraha bulshada qoraaxdoodana marba dhinac loo jiido kuwaasi oo micnahooda guud haddii la miisaamo ay ka dhex iftiimayso in qofku uu ku xeeldheeraaday sida wax la xiriira dhaqanka iyo diinta ama waxyaabo kaleba qof walba wuxuu ku leeyahay fanka waa ka baxanayo baatood keenay awal ma gaalada waa fanka waa laga bixi karaa waxa wax iska easy waa laakiin ma bixi karin muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa ka jawaabidda su'aasha miisaamka leh ee ah waa kuway labada fanaan ee sida daran ugu jeesjeesa fanaaniintii fanka isaga baxay ee Alle uu hanuuniyay sidaa darteedna iyagoo ay kaga caroodeen sharaxaadda ka hor labada fanaan oo ay warbixinteena taabanayso midka koobaad waa iidle Yare tan labaadina waa Farxiyo Kabayare muhiimad inooma ahan inaan sheegno wax ka baxsan erayadii saameynta yeeshay oo ay labadan fanaan ugu jeesjeeseen kuwii la midka ahaa ee fanka hadda ka faaruqay Allana u toobad keenay waxaana marka ay sheekada halkaasi maraysa ka dhalanaysa weydiin culus oo ka jawaabideeda ay muhiim tahay taasi oo noqonaysa miyuu hanuunka labadan fanaan la noqday wax raqiis ah mise iyaga ayaa raba inaysan hanuunin xitaa marka dambe si ay heesaha iyo muusiga daris ula sii ahaadaan inkastoo qof walba uu leeyahay shakhsiyad u gooni ah iyo waxyaabo isaga u gaar ah haddana waxaan doonaynaa inaan iftiiminno inay ahaayeen waxyaabo laga fiicnaa inay ku hadlaan labadan fanaanba haddii aad xiisaynayso inaan kuu sharaxo qeybo yar oo ka mid ah hadallada iidle Yare iyo Farxiyo Kabayare inala daawa muuqaalkan inaad laag saarto waxay muhiim u tahay barteenna sidoo kalena u sheergari asxaabtaada si aan u helno saaxiibbo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga maalmihii la soo dhaafay waxaa fanka isaga baxay fanaaniin dhowr ah oo aan ka diyaarinay warbixinno xiise yeeshay oo ay daawatadeenna aad u soo dhoweeyeen sidoo kalena ay aad ugu farxeen ka bixitaanka fanka wiilal iyo gabdho heesaa ahaa aadna uga dhex muuqday saaxadda fanka Soomaalida marka koowaad aynu soo qaadanno ka hadalka fanaanka caanka ah iidle Yare kaasi oo muuqaal uu soo duubo uu ku muujiyey sida uu u arko in fanka ay ka baxday fanaanadii codka hallaasiga ah lahayd ee xamdo yar waxaana muuqaalkiisa ku dhex jira erayo badan oo aan sinaba u fiicnayn oo fadeexad lagu tilmaami karo qof walba wuxuu ku leeyahay fanka waa ka baxanayo baatood keenay awal ma gaalada midda kale waxa waaye fanka waa laga bixi karaa waxa wax iska easy waa laakiin ma bixi karin aniga ma ka bixi kari xamdiyara ugu dambeysay hadda waa ka bixi tiray salaadna ma tukato midda ka tan xamdiyara ada bataawo ku nool xamar kugu biishabo aniga bila ishak haddii aad erayadan dhegaysatay waxaa muhiim inuu iidle Yare ka jawaabo su'aalaha soo socda oo ah ma isaga ayaan rabin inuu Alle ka soo hanuuniyo fanka iyo heesaha uu ku dhex jiro ma waxa uu xaqiijiyey in gabadhan muslimadda ah aysan salaada tukan mise isaga ayaa lacag darteed u rabaa inuu ugu sii xeel dheeraado fanka iyo muusiga ee uu bartamaha hadda kaga jiro dhanka kale fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayare ayaa barteeda Facebook ku muujinaysa maalmahan inay qalad tahay habka ay fanaaniinta qaar uga toobad keenayaan heesaha waxaana maalmo yar ka hor ay baraha bulshada ku soo qortay erayadan DEEQ naqshadiisu ay ka duwan tahay kuwii aan hore u arki jirnay sidii show fanaan dhigsaday ama aroos la sii digayo oo kale ayuu u sii buunbuuniyey ka bixitaankiisa fanka uu ka baxayo waraysigiisana waxa uu sii iclaamiyey calashaan arbacada wiigan iyo wad sheekada muxuma toobada mar kastana waa ay furan tahay waxaanse ka sii jeclaan lahaa in toobada ciyaarta laga daayo toobada saxda ah ilaahay hayna waafajiyo aamiin yaa rabbi sidoo kale dadyaw aad u fara badan ayaa ka aragti dhiibtay qoraalka ay Farxiyo Kabayare ku soo qortay barta Facebooka labadan shakhsi ayaana ka mid ah shakhsiyaadka aragtida ka dhiibtay kuwaas oo u tilmaamayay in fanaanku uu saxan yahay Allana uu hanuun la doonay sidoo kale iyadoo fanaanada ay u baahan tahay in Alle uu ka soo hanuuniyo heesaha ay ku dhex jirto shakhsigan oo barta Facebooka ku soo galaa Senior Fahad waxa uu barta aragtida ugu qoray Farxiyo Kabayare qoraalkan ogaada toobada qofku uu Alle waafajiyo ayaa toobad keena waana naxariis uu Alle u naxariisto adoonkiisa biki haddii uu fanka isaga baxay waa naxariis uu Alle ka helay qof walbana ma helo ee qofkii Alle uu jecel yahay ayaa la waafajiyaa sidoo kale gabadhan ku soo gashay barta Facebooka magacan ayaa iyaduna qaybta aragtida ugu qortay adigu maxaad uga gubataa fanaan hebel ayaa fanka isaga baxay waa la ogyahay fanka inuu fusuq iyo camal shaydaan yahay taageero badan buu lahaa wuuna ku qasban yahay in dadkiisa uu u sheego in fanka uu ka baxay wax qaldan uma arko taasi anigu jeelkeede anigu ilama fiicna
labadan shaqsiba siday aragtida uga dhiibteen fanaaniinta fanka isaga baxaya. haddaba adiga hadda muuqaalka daawanaya sidee ayaad u aragtaa hadalkan jeejeeska ah ee fanaaniinta labada ah ay hawada u mariyeen fanaaniintii fanka isaga baxay? magacaygu waa shaafici maxamuud nur shaafiinho. aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.